ساري هاي حسوسين جعي qaybta masayrka ee la masayrsan ee najixna la masayrsan gacantaas soo taagtana ninku ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay kulligiin waa inaad ku dayataan Xariir Axmed gabdhihii Soomaaliyeed oo idil ayaa waxa ay la maseereen guurka uu guursaday Xariir Axmed iyaga oo la maseersan xaaskii horeetay Xariir Axmed ee Najax waxa ayna intooda badan soo qaadanayeen heestii uu Xariir u qaaday xaaskiisa ee ahayd nafar kale lama simo najaxdeeda ubadkeenu jisaan dhex yaala نفر كلا لا مسيو نجح ذيدا وبتكينو جسانا دحيالا نتقي يوم قولوا واحنا قليا نتقي يوم قولوا واحنا قليا daba barnaamijkan ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa muuqaalo kala duwan iyo sidoo kale wararka sheegaya in Xariir Axmed iyo Najax ay kala tageen iyada oo baraha bulshada la isla wareegay in Xariir uu horay u furay xaaskiisii hore balse barnaamijkan ayaa wax walba ku ogaan doontaa bilow ilaa dhamaad iyo sidoo kale waxa ka jira inuu 17 Oktoobar ee bishan aan ku jirno uu meersan doono Xayaat Cabdixakiin gabar lagu magacaabo daba barnaamijkan ayaa wax walba ku ogaan doontaa fadlan muuqaalka laag noo saar sidoo kale haddii tahay booqashada ugu horeysay channelkana soo booqato fadlan subscribe saaro gambaleelkana furasay ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo galino I'm a bad boy looking for a bad girl hadalkayga fiiri cilbi u dhimanayaan sidaan hore idinkugu soo sheegnaba waxay dhammaan gabdhihii Soomaaliyeed ee la masirsan yihiin Najax oo ah xaaska Xariir Axmed walow maantay oo Xariir Axmed gabar kale uu la guursaday maadaama ee Najax ka fogtahay sana suurta galin in mar walba ay waqti wada qaataan balse guurkan la shaaciyay ee Xariir Axmed sidoo kale Xayaat Cabdixakiin ayaa waxa aad uga xumaaday gabdhaha ku jira barta TikTok iyaga oo ku challenge gareynayay in wixii horeeta ee been ahaayeen heestii uu soo qaaday Najax Xariir Axmed dhanka kale wiilasha TikTok ku jira ayaguna waa ay challenge gareeyeen iyaga oo taageeray Xariir Axmed haddaba muuqaalo kala duwan ayaan ka soo qaadanay halkaas waana idinla wadaagi doonaa balse inta aanan idinla wadaagin muuqaaladaas waxaad in yar ila daawataa muuqaal hore kaasoo ku saabsan marka uu Xariir Axmed heesta amaanta ah uu u qaadiyay xaaskiisa Najax kaasoo uu ku sheegayo inay tahay casho sharaf uu u sameeyay xaaskiisa ila soo daawo muuqaalkaas yar waxay waxa weeyaan horta xafid waa xafas casho sharaf lagu talagalay xaaska laakiin loo kusay cafiga iyo qofkii ay saareen marka heesa lagu talagalay xaaska halkan caawa ka qaadaya insha Allah kadibna heesa way la soconayaan casho way la furmi doontaa la tahay inaad muuqaalkaas soo daawato balse isla muuqaalkaas waxa ka daba socday heesta uu u soo qaaday Najax gadaal ayaan idinkaga fasixi doonaa heestaas balse waxaad haatan in yar ila daawatiin mid kamid ah gabdhaha ku jira barta TikTok aan ka soo qaadanay muuqaaladeeda gabadhaas oo aad uga xumaatay ugana carootay guurka uu guursaday Xariir Axmed qaybta masayrka ee la masayrsan ee najixna la masayrsan gacantaas soo taagtana ninku waji xuma laakiin bismillaah naagaha Soomaalida waan ka yaabaa daasada meel ka soo qaadanayo boos waa toosin taasad kala dhinaca ka haysato adduunyada ilaahay naxnaagayna sharaf lahaado horeeraha buuxay dhisan ka dhamaada yaa ninku waji xuma laakiin bismillaah gabadha bisaa u kala qalanjada nooc wataada igu qaadan igu tarmisan ka waxay ila tahay inaad muuqaalkaas yar soo daawatay balse Xariir Axmed ayaa marar badan heeso soo qaaday kuwaas oo ku socday xaaskiisa heesahaas oo inta badan la janqaadiyay waaqica xilligaas taagnaa waxaa ka mid ah heestan hadda aan idin soo deynayo mar dhibsaday fogaantaada xuduudaha ka murugooday masafana cudur daaray illadana ka meermeeray udulqaatay mahadhooyin illadana ka meermeeray udulqaatay mahadhooyin bas intaas ay iga badan waxay ila tahay inaad soo fahamtay heestaasi iyada oo micnaheedu heestaasi ahaa inuu dhibsaday fogaanta ay ka fogtahay xaaskiisa waxaa kaloo jirta hees iyadana aad loo hadalhayay taasoo loo haystay in uu Xariir Axmed xaaskiisa horeetay ee Najax uu furay inta aanan idin ka hor dhicin ila soo dhageyso ereyada heestaasi hawl yaraysto maanta hilmaamay ka hadho ismahayno jacaylka hamigaygana waan ka saaray hay xasuusin jacayl waxay ila tahay in dhagahaagu ugu dambeeyeen hamigayga waan ka saaray ismahayna jacaylka
balse heestaas ma ahayn mid loogu talagalay ama ku socotay xaaskii hore ee xariir axmed. waxay ahayd hees erayadeedu uu lahaa nin lagu magacaabo liibaan saxartiid, waa ayna ka horreysay heesta najax xilliga uu u qaadayay heestan. waxaad in yar ila daawatiin heesta aadka baraha bulshada u qabsatay ee hadalheynta badan dhalisay ee horay ugu qaaday xariir axmed xaaskiisa. sida nuuca xuural caynta najax weeye nimco eebba nasri iyo nolol weeye nalka wayadhaya hayga nuurka siiya naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye naxariista hadalkeedu waa nasteexo ku nastoo nikaaxeedu farax weeye. heesta ma soo wada qaadanayno balse qaybta ugu hadalheynta badneed ayaa waxa ay ahayd nafar kale lama simo najaxdeeda. waatan ila dhegeyso iyadana. nafar kale lama simo najaxdayda ubadkaynu jisaana dhex yaala nitaqiya uma quuro wax nugleeya nitaqiya uma quuro wax nugleeya. kooxda aadka u mashquulka badan ee dhooban barta tiktok-ga waxa ay haysteen heesuu horey u qaaday xariir axmed taasoo odhanaysa eryadeeda. ballayda duushay haddaad bariguntiyaado qalbidhaya qofka ku buko baahi ku qabadhiye indha ku buseela darta baaqan soo diray dhe bogan weyday ruuxdani hurdada biliyo dheeraada dhe booskaagiban ruux qala ku dar. waxay ila tahay inaad dhegaysatay heestaasi. waa hees aad moodid in ay meel ku socoto, taasoo marka la micneeyo heestaani ay noqonayso qof marka horeta kuu buko ayaan ahaa balse booskaagii qof kale ayaan ku bedelay. heestan ayay aad u hadalhayeen kooxda tiktok-ga ee aadka u mashquulka badan. waxa aynu ku tilmaamayeen in booskii najax lagu bedelay gabadhan. waxaa kaleeto ila daawatiin mid ka mid ah dhallinyarada tiktok-ga oo asna si dadban uga hadlay arinta xariir axmed sidoo kaleeto guurka gabadhan cusub uu guursaday. wasiirkan baa gudaha fanaanka weyn ee xariir axmed aad iyo aad baa u salaamaya. dumaroo yaa la kala gardarnaan. aniga fanaanka salaan baa hawad u mariyay waana taageeraa meel kale hayla aadina. fanaanka xariir axmed aad iyo aad baa u salaamaya. guusha uu ka gaaray dhanka fanka guusha uu ka gaarina waa ugu hambalyeynaya. hadda aniga fankiisa aan ugu hambaliyey guusha uu ka gaaray. dumaroo meel kale hayla aadin haddaba idiin sheegay. ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay kulligiin waa inaad ku dayataan xariir axmed. macnaha nin dhalinyaro ah, afgaaban, akhyaar ah, carabkiisa iyo adinkiisa laga nabad helo wey. waa duceynayaa commentiga rago aamin kusoo qora. ilaahu ragga soomaaliyeed xariir axmed oo kale ka wada dhig. aamin soo wada qora. dumaroo iyo anigu ninkaas afgaabnidiisa akhyaarnimadiisa ugu duceynaya meel kale hayla aadina. ilaahu ragga soomaaliyeed xariir axmed oo kale ka wada dhig. ilaahu ragga soomaaliyeed xariir axmed wadadii uu maray ee akhyaarnimada iyo dhallinyarnimada iyo afgaabnaanta iyo ilaahu ragga soomaaliyeed wadadaasoo kale wada mari. ilaahu guusha ila tahay inaad dhammaan barnaamijkan aad soo daawatay iyo guud ahaan muuqaaladii aan idiin soo wada gudbinay kaasoo aan ku soo bandhigaynay guurka uu guursaday xariir axmed. waxaanu leenahay hambalyo. sidoo kaleete muuqaalka laag aan saarno haddee tahay booqashadaad ugu horreysay aad janalkana soo booqatana fadlan sabskaraib saaro gambaleelkana fura si ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino. waad ku mahadsan tahay daawashadaad muuqaalkan daawataynta ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan